Ethiopia waxay ka mid tahay wadamada saxeexay heshiiska qaramada midoobay ee sugidda xuquuqda muwaadiniinteeda. Waana dalka labaad ee Afrika ugu dadka badan. Waxa ku nool in ka badan 100 milyan oo qof. Hase yeeshee isbeddelkii siyaasadeed ee ka dhacay dalkan waxa uu keenay in isbeddel dhinacyo badan uu ku yimaado dhaqaalaha, siyaasadda iyo arrimaha bulshada. Wax kasta waa isbeddeleen. Maamulada deegaanada qaar ayaa ka hor yimid isbeddelka. waxaana ka dhacay Ethiopia qulqulatooyin saameyn ku yeeshay midnimada qowmiyadaha iyo aaminaadda dastuurka dalkan. Markii ugu horeysay ee uu xilka qabtay Abey waxa uu soo dhaweystay mucaaradka. Wuxuu isbeddel ka sameeyay Ethiopia. Sanadkii 2018 wuxuu heshiis nabadeed la saxeexday Eritrea oo colaad kala dhaxaysay. Tallaabooyinkaas oo horseeday in la guddoonsiyo biladda nabadda ee sanadkii 2019. waxaa dalkan hareereeyay dagaalada u dhaxeeya qowmiyadaha qaar kaas oo ka qarxay gobolada waqooyi ku yaal ee Tigray. dhawaan ayaa Abey Axmed loo caleemo saaray xilka ra'iisul wasaaraha si Ethiopia uu hogaamiyo 5 sano ee soo socota. kadib markii xisbiga PP ee barwaaqo uu ku guuleystay doorashadii bishii July ka dhacday dalka. sidoo kale dib u soo noqoshada Abey waxay u muuqataa mid fariin loogu dirayo beesha caalamka oo xiriir kala dhaxeeya uu heerkii ugu xumaa marayo. saaxiibayaal, xubinteedan kaga hadli maaya Abey iyo taariikhda xukunkiisa, balse waxaan idinku soo tabin doonaa xaaladii ugu dambeeyay Ethiopia iyo sida loo arko baaqyada ka soo yeedhaya caalamka. dagaalada ka socda waqooyiga Ethiopia ayaa u soo gudbay bartamaha Ethiopia kadib markii kooxda TPLF qabsatay magaalooyinka muhiimka ah ee Desa iyo Kombolcho. dagaalada ka socda gobolka Tigray ayaa walaac xooggan laga muujinayaa, waxaana la rumaysan yahay inuu saameyn ballaaran ku yeelan doono gobolka, iyadoo hadda dad badan oo naftooda kala baxsanaya dirirta ay gaareen meelo u dhow caasimadda Addis Ababa xilli dunida uu saameyn baan ku yeeshay fayraska corona. waxaa jira baaqyo caalami ah oo loo jeedinaya dhinacyada dagaalamaya oo ah inay joojiyaan dagaalka, isla markaana wax walba wada hadal ku dhameeyaan ayna u turaan dadka rayidka. ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abey Axmed ayaa shacabkiisa ugu baaqay inay soo galaan dagaalka adeegsadaan hub kasta oo ay haystaan si ay u joojiyaan horusocodka ay wadaan ciidamada falaagada Tigray. Abey ayaa sheegay inay waajib ku tahay muwaadiniinta in sida uu hadalka u dhigay ay xanibaan, baabi'iyaan oo ay aasaan ciidamada jabhadda TPLF. xilli uu intaas raaciyay inay ku caanamaalayaan waardiyeynta dalkooda. qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in 5 milyan qof oo ku nool gobolkan ay ku nool yihiin xaaladaha macaluul u eg sanad kadib markii uu dagaalku bilowday. ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abey Axmed ayaa u muuqda inuu sii wado siyaasadaha uu horseeday in Ethiopia ay go'doon gasho ayna lumiso saaxiibtinimada kala dhaxeeya caalamka iyo saameynta ay ku lahayd go'aanada gobolka sida ay ku waramayaan warbaahinta qaarkood. bishii la soo dhaafay dowladda Mareykanka ayaa u dirtay Ethiopia digniin culus kadib markii ay ku hanjabtay inay cunuqabateen ay ku soo rogi doonto saraakiisha dowladda waa haddii labada dhinac ee ku dagaalamaya dagaal ka dhaxeeya heshiis ka gaari waayaan si gargaarka loo gaarsiiyo malaayiin qof oo ku godoonsan gobolka ay colaaduhu ka taagan yihiin ee Tigray. dhawaan ayay ahayd markii qaramada midoobay ay ka digtay 100,000 oo qof ay macaluul ugu dhiman karaan Tigray. talaabadaas kadib Abey wuxuu dalkiisa ka ceyriyay 7 sargaal oo ka tirsan qaramada midoobay isagoo ku eedeeyay inay soo farageliyeen arrimaha gudaha dalkiisa. xaaladda ayaana cirka isku sii shareertay. xoogga TPLF ayaa mar kale duulimaad adag ku soo qaaday militariga Ethiopia waxayna qabsadeen magaalooyinka warshadaha iyo ganacsiga ee Desa iyo Kombolcho oo caasimadda Addis Ababa u jirta in ka badan 380 kilomitir. wejiga dagaalka ayaa isbedelay. shacab rayid ah ayaa ku dhintay colaadaha dagaalada, waxaana uu sii gudbay dagaalku bartamaha, galbeedka iyo guud ahaan deegaanada Canfarta iyo Oromada. waxaana halkaasi ku kulmay jabhadda Oromada iyo xoogga kooxda TPLF oo bilo ka hor isbahaysi ku dhawaaqay.
dowladda Ethiopia ayaa markan xaalad degdeg ah ku soo rogtay dalkeeda kadib markii golaha wasiirada Ethiopia yeesheen shir aan caadi ahayn halkaasna ku go'aamiyeen in 6 bilood oo xaalad degdeg ah lagu soo rogo dalka xilli ay sii xoogeysanayaan dagaalada u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo kuwa xooga TPLF iyo jabhadda xoreynta Oromia. quwadaha reer galbeedka Ruushka iyo Shiinaha iyo Mareykanka ayaa u soo jeediyay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Colonel Abey Axmed inuu is-casilo waddankana iskaga baxo oo uusan ku dagaalamin magaalada Addis Ababa. Colonel Abey ayaa codsaday in la siiyo waqti uu ku soo fikro. diblomaasi laga soo xigtay ayaa sheegaya inay u badan tahay inuu aqbalo taasi inay suurto gasho waa adag tahay waayo Abey waa nin madax adag. warbaahinta caalamka ayaa aad u hadalhaya xaaladda waddanka Abey kadib iyo sida loo dejin karo waddanka loogana baaqsan karo xasuuqyo qoomi ah oo la mid ah kuwii 1994 ka dhacay Rwanda ama kuwa ka daran. guud ahaan Mareykanka ayaa Ethiopia ka saaray liiska dalalka wax soo saarka cashuur dhaafka ugu dhoofiya Mareykanka. Mareykanka ayaa sheegay inuu talaabadan u cuskaday xaaladda ka jirta waqooyiga dalka. barnaamijka Agawa ayaa waxay noloshoodu ku tiirsaneyd muwaadiniin badan oo Ethiopia oo ka shaqeynaya wax soo saarka loo dhoofiyo Mareykanka. waxaa saaka borordiiq loo sameeyay ciidamada saldhigga waqooyi deegaanka deganaa ee ku dhintay weerarkii u horeeyay ay TPLF qaado xilliga dagaalku bilowday. hogaaminta iyo madaxda kala duwan ayaana ka qayb galay xuskaas. xafiiska nabadgelyada maamulka Addis Ababa ayaa geesta kale baaq u diray ugu baaqay shacabka dadka jooga xafiiska nabadgelyada maamulka Addis Ababa ayaa ugu baaqay dadka jooga caasimadda in sida khaaska ah u haystaan noocyada kala duwan ee hubka inay iska soo duwaan geliyaan saldhigga booliska u dhow. madax xafiiska nabadgelyada maamulkaasi ayaa sheegay in la fasaxay inay dadku xaafad isku abaabulaan oo ay sugaan amniga nawaaxigooda iyadoo qaab dhismeedka shacabka ee abaabulan uu la shaqeyn doono midka dowladda. ugu dambeyntii cabsida ugu badan ayaa laga qabaa jabhadda OLA oo amxaarada dunidu u marisay inay yihiin bahalo raba inay xasuuqaan shacabka amxaarada ee ku nool deegaanka Oromia. ra'iisul wasaare Abey oo la hadlayay golihiisa wasiiraduna waxa uu sheegay in jiidda dagaalka ee wallo ay ka qayb qaateen dad aan Ethiopian ahayn waxa ay ahaayeen buu yidhi dad caddaan iyo madow isku jira oo la safnaa kooxda TPLF. Abey ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu mas'uuliyiinta dowladda ugu sharaxaya xaaladda dagaalka ee dhawaanahan ka socday waqooyiga Ethiopia. deegaanada badan oo Ethiopia ka mid ayaa ku soo biiray dagaalka. bayaanka xaaladda degdega ayaa guud ahaan meesha ka saaray isku socodka iyo dhaqdhaqaaqa shacabka ee ka qayb qaadanaya howlaha socda. warbixintan oo aad kala socoteen telefishinka ama warbaahinta SSDM intaas ayaan ku soo koobaynaa. tan iyo kulanti dambe nabadey.